صاحبا هيا ورسوق ادي ابا يا واي قول كيشينو كبرس ابا برانك برانك واي ابا كفت واي دقه بورتو كادنو miskiin wuu dhaawacmay baraangi ayuu sameynayay balse xaalku wuu isbedelay waxay gaartay dagaal oo waxa ay si toos ah ugu tuurtay teleefonka oo dhulka ayay ku dhufatay asigu baraangi ayuu sameynayay laakiin dhab ayay mooday xaalka ayaa ku xun isbitaal ayuu jiifaa war sheer gareeya waa muuqaal xasaasi ah oo maanta warbixinteena arrimaha bulshada aan ku soo qaadan doono falowdhaha beejka waxaa laga yaabaa in aad waxba u arkin in aad falow dhahdo balse anagu qiimo ayay noo leedahay sidaan u ogaanay inta ka heshay warbixinadeena fadlan like saara adinkoo iloobin in aad subscribe dhahdaan youtube-keena Somali Social TV aan ku bilowno barangigu waxa ay dadka badani ay si kadis ah ugu sameeyaan dadka kale waxaana u badan in ay qoysas dhexdooda isku sameeyaan kaasi oo ay soo dhigaan baraha bulshada oo loo isticmaalay kamerada qarsoon waana inta badan waxyaabo uu la yaabo qofka lagu sameynayo barangiga ama uu xanaaqo xitaa haddii uu ogaado in uu barangi ahaa oo xanaaqa ka tambadiyo oo been kaga soo kaban waayo oo run u maleeyo maanta waxaan idin haynaa lamaanahani isku sameynaya barangiga kaasi oo ah mid ismaseersiin ah oo ninka ku sameynayo xaaskiisa si ay u xanaaqdo laakiin wixii ka dhacay waa lisla yaabay oo hadda isbitaal ayuu jiifaa wuxuu soo qaatay talka isagoo iska dhigaya in uu naag kala shukaansanayo ama mid saaxiibtiisa la hadlayo laakiin waxaa maqashay xaaskiisa oo soo baxday oo waxa ay wax ka weydiisay waxa uu sameynayo asigoo ka warbixin ayay talka ku dhufatay oo ay ku garaacday wax meesha yiilay kaasi oo sababay in uu dhaawac soo gaaro markaasna isbitaal la dhigo bal adiguna nala daawade babe maya hadda quraacad waa soo baxaya baby yaan hadlowsaa ka gabadha saaxiibanana haya warsuug adi aba ya waay qول كيشينو كبرس ابا برانك برانك واي ابا كفت واي دقه بورتو كادنو waa wareey walle waa uu dilan yahay ninka baldaya sida loo galay bal wiilow adigu ma ku samayn lahayd lamaanahaada barangi nuucan oo kale ah gabarey adiguna sidaasi camal ma u dili lahayd ninkaada oo isbitaal ma seexin lahayd haddii uu kugu sameeyo barangi ama aad aragto asigoo shukaansanaya mid kale su'aalaha jawaabahooda qaybta faalada ama commentiga noogu reeb siina sheer gareey muuqaalka adigoo falow dhahaya beejka Somali Social TV hana iloobin in aad subscribe dhahdo youtube-keena Somali Social TV oo aan xogo badan ku soo gudbin doono tan iyo kulanti dambe nawaday